Caaqil Cumar Cismaan kamida uqaasha dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta qaybo kamida warbaahinta la hadlay ayaa waxa ugu horeyn jawaab kulul ka bixiyay hadallo deelqaafa oo ka soo yeedhay Suldaan saleban boqor cisman oo soo farageliyay arrimaha tabashooyinka gobolada Awdal iyo Salal. Caaqilku jawaab kulul ka bixinaya uu yiri waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta nin la yiraahdo ama isku sheegay Suldaan saleban Suldaan boqor oo aan magaciisuna caadi ahayn hadalkiisuna caadi ahayn fikirkiisuna aanu wax caadi ahayn ninkaasi wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo uu yiri beesha dhaxaa tacabkeedii la cunaayo dhiigeedii baa la cunaa ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynihii hore daahirayaal ka ahayn wuxuu kaloo ka hadlay ugaaska beelaha gadabuursi intaaba ka hadlay isagoo si aan faham lahayn ama aan garasho lahayn uga hadlay arinta baan doonayaa inaan bal wax ka idhaahdo waxaan doonayaa inaan dadka gobolada galbeed ka soo jeeday aqoonta leh ama salaadiinta leh ama siyaasiyiintii si aanay uga hadalo aanay ninka isku khasaarin baan anigu si degdeg uga soo boobay saakoon hadalka u soo dhigaya horta ninka markaan haybtiisii raacay ee aan tuhooyday ee aan daba galay wax aad u yaqaan haybtiisii waan weyn waxana lagu yiri ninkaasi hadaanu ahay nin ama kaari ahaan jiray ama dadka wax qaad ayuu ahaan jiray la yiri dadka ugu hayb dhow sidaas yiraahdeen sida darteed laakiin mushkiladda jirta imika saxaafadii baa waxay noqotay wax cid walba soo gasho waxaan u doonay ama waa loo soo dhiibay ama isaguba ha ka ahaatee arrinkiisa ninka waxaan ku qiyaasay bari baa waxa jirtay nin jaahila dabeetana ninkii jaahilkii wuxuu arkay nin wax akhriyaya oo muraayad xidhan dabeetana wuxuu doonay inuu isna muraayad intuu iibsado wax akhriyo dukaan muraayadaha lagu iibinayo tagay wuxuu yiri war bal muraayada iga iibi muraayad baa loo dhiibo uu gashaday markuu gashaday buu yiri haddana waraaqda ay dhiibo waraaqdii buu ka eegay wuxuu yiri tan iga bedel uu ka bedelo tukal uu dhiibo haddana waraaqdii buu ka eego tukal uu ku bedelay afar muraayadood markuu qaatay buu ninkii muraayadaha iibinayay ku yiri waar uma baahnid muraayade waxaad u baahan tahay waxbarasho marka ninkani wuxuu arkay nin koofiyad sita oo muraayad sita oo cumaamad sita oo saxaafadii hor joogto hadlay wuxuu mooday marka in saxaafadda ay ka hadlo koofiyadda iyo cumaamada iyo muraayaddu inay hadisho mooday ma hadlaan muraayadda iyo cumaamadu waxaad u baahan tahay aqli iyo garashaad u baahan tahay takale mushkiladda Soomaalilandnimadu keentay intii ay jirtay barigii intaan Soomaalilandnimadu jirin dadku xad bay kala lahaayeen wuxuu yiri nin kacaankiisiyaad bare xisbigii hantiwada galooran jiray ayaa bari aan ka dhageystay idaacadda Muqdisho nin PR oo ka hadlayo kacaanka amaanayo kacaanku horumarku gaaray iyo dadka sidoo u dhisay iyo habkooda aad buu dadka ayuu amaanay wuxuu yiri waxa calaamad u ah in kacaanku dadka hore u mariyay heblaayo sarakac buu gabadh halka fadhiday way markaasuu yiri maxaad ahaan jirtay xisbi kacaanka ka hor maxaad ahaan jirtay waxay tiri sharmuudaan ahaan jiray imigana maxaa tahay gudoomiyaha xisbiga degmada hawlada wadaag baan ahay bay tiri imiga Soomaaliland waxaan ninkani muxuu ahaan jiray marka la weydiiyo tuug buu ahaan jiray la yiri war maxaad ahaan jirtay waxaan u maleynayaa ninkani tuug buu ahaan jiray maanta maxaa tahay waxa tahay Suldaan baad sheeganaysaa marka horumarka iyo mushkiladda Soomaalilandnimadu ay dadka ku keentay horta shakhsiyadda qofkaas sidaas kama foga intaana u sii dhaaf maayo ninkaasi nin beel lagu canaanto beel heblaaya sidaa tirina ma aho beesha anagu beesha dhaxa kuna canaanamayno kuna caaymayno shakhsiyadiisa baan u dhigayaa anigu arrinkiisa marka laga eegay wuxuu yiri waxayagii baa la cunay oo beesha dhaxaa tacabkeedii la cunay oo maxaygeedii la cunay hadee beelaha beesha dhaxe waxay noqotay SNM bay la soo gashay waxay la soo gashay ee tacabkay sheegaysaana dhagar baa hayd kulkay soo gashay dhagar iyadoo dhagaraysan bay SNM timiday wadanka hadee markay timidayna dadku weerar iyo difaac bay kala ahaayeen waxay ahayd dhagartii cidii wax dhagreysay qarankii Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed oo dawladda ayay SNM weerartay dabadeetana markay weerartay dadka darafiyada beelaha darafiyaduna difaac bay haayeen marka xagga sharciga laga eegana cidda wax difaacaysa nafteeda difaacaysa iyo cidda wax soo weeraraysa waxa ka xalaalsan cidda nafteeda difaacaysa wixii aad la soo gasheen oo dhagar hoo xaaraana iyo difaac iyagii oo xalaala baynu isula nimid markaasaan idin xalaalayn xaaraantiini markaasaad leedahay waa nala cunaya macquulnimadaada eeg
يعني waxaad ku garan kartaa in SNMtu ay aanay xaaladeedu hagaagsaneyn waxna aanay wadi karin markii burca la isku yimid laba sano loo dhiibay maxaa dhacay labadii sano SNMta loo dhiibay maad garanaysaa wixii dhacay burca weedkii birta iskaga aslay sheekh waad ogeyd wixii idin kala gaari berbera waad ogeyd dhiigii dhacay dagaalkii toon iyo hargeysa waad ogeyd intaan anaga idin kala dhacaranani Soomaad garan intaas waxay wax u sameyn weyday ay u hagaagi weydna waxa weey maamulkeedaan hayn karin oo dad dhagaraysa baad haydin Soomaad garan oo dhagarta mushkiladan li laakiin anagu markaynu isku nimidee beelaha darafiyadu yimaadeen xalaalnimadii iyo xaaraantii markay yimaadeen xalaashii baa ka badato markaas aynu sidaa ummad ku noqonay war waxaan ad ku tacabteed sheegaysaa de tacabku waa dhagare wax kala maad sameeyay beerana maad sameeyay baamishtar Soomaad qod inta markaan ka gudbo waxaad garanaysaa labadii sano ee SNMtu dhiigii dhacay waxaad kala wad garanaysaa xisbigii SNMtu u midowday ee Siilaay madaxda ka ahaa ee Muuse ku xigeen ka ahaa ee Cabdiraxmaan Sayli madaxweyne ku xigeen Cabdiraxmaan Cali madaxweyne ku xigeen ka ahaa SNM oo goombahay doorashada markay soo gashay waa tii haan daba la noqotay qof weeyday markii xalaashii Cabdiraxmaan Sayli kulmiye la galayna laba goor buu guuleystay taasi waa xalaalnimada weyn waxaan idin sheegayaa xisbiga kulmiye wataa imiga labadii goor waa ka Sayli ka dhamaadee hadii mar dambe xisbiga kulmiye oo wada SNMhi aw soo baxo aniga waliga waxba ay weydiin waxa la wax ka jira ma jiro hadii aan taa ka gudbo oo waxaad ku soo tacabteen waxa uu yahay aan idin sheegana de burca way socon weyday sheekadu markii la geeyay gogosha boorama la keenay bay Soomaaliyaanimadu hagaagto sidii aan u raray wataa u raran maanta aan sacna xagan وحراشة وي وجوش حراشة وي وحين وحكونها هي حراشة هي حاران تاس كنت ترتيبه دقرتي هتقشين انتو الله إنك دافع بوتاية دي أقوله تاني بان دولة كنا ور نمدة إنه داي هدي أنو كب إحنا وحي كل حرام تاي شريتان كسومال لاني حلال نمدة دو بيلها الطرفية دورين تاي وشران هدي إمي كب حان أو أرور تاي دهان وأنا كب حنا وحي نقولنا ساب الجبهات بين نقولنا سا أدو كنا الجبهات وحبك بقى adduunkana jabhad waxba kama ahe wataa imiga itraafki yaani xabashida Soomaalida diidaysa in la yidin dilay iyo inaad wax dishaan aan iyadu kala jecelayn ma ahe caalamka cid kale oo idin garanaysan ma jirto markaaynu ka eegno xagga daahirayaalana de daahirayaale horta ayaan dareebe tahayba inaad adigu la hadasho ما بقرنا شداير يوم ما تقعنا ما قرنا سا يعني قفك بروفيسور كي وراقده وقراء دكتور كي قفك أولها كبرت ما آخري كرو يعني فرت الظاهر رجال ما آخري كرتيد بعده كمان الجواب كرتيد وقالتنا مورن كرتيد واسعنا مورن كرتيد عقود تينا لاين أدبان وقحوا بين الظاهر رجال سوقاته برينو كاحجين وقلبيت كاحجين ما قال قرنا سيد ما تبيش وجو يسدا وياي ما قرنا كرتيدو ده سبت تيت الميهدي إن لكن مركان يعني وحو كتجي محمد حاج إبراهيم قال ظاهر رجال تان كاجش جيو محمد حاج إبراهيم عقال وحو كتجي دولة الصومال لانو بلا سلف هو اللي ريحه هو تشوجا السجع عياس عنده سمية أو سلف سمية أو تاجر سمية وإحنا تقرنا سهل كعالم كجي أقل كإنجليز كاللور هولس كلا يداهدو أو أن الدون كأفريقيا كلبن أي كلام نكى صدحات بنقضي نكى حيل سلاسل لورنشري يوم الدلة يداه رجالا كهرلي ولين الناس سلام هو هالك قاعد مجرى متشرو لكن حقيقة ده وسكوش يجنو لندن بوتجي سيلايو وحتجي شركة الصومالي دوتجي مو سنة وحتجي جيبوتي أو شركة الصومالي دوتجي أنت إنك شيء يسموه ما يتجي هدي أو سيد شوق لهانا اعتراف بعد على لكن الدون كان ولي كده عندنا ورثنا ما هي ضدك سومال لان لوريسري باون هاي اعتراف كان سبيه وأنا جاي نقول حدنتي هذا بيلها طرفيات وكبحان عندنا في جاه شهر سيسن ما يبيش ده عادي عاد بان وقحهم هاي إن عادي خاصو كل لو سود دايو يعني وحولي نبى نعلم داير لوريسري وقاسدي قد بورسجاها أيجي نمن عين كاغا سو كله الدونين عبيان دبيتنا وحولي إسلام دورتي ستة وتجينا وحيدين markuu cilmi dheer bari doodayo waxaad ku tiraahdaa ninka cilmi dheer ugaasgihi islaanta jirkaygaale iyo habeen walba uu soo gudaa dabeetana markuu xanaaqo ayaanu anaguna dili bay yiraahdeen cilmi dheer uu gorto wuxuu yiri war cilmi dheer ay u soo guday war ha ka dhigatay shirkay noo wada bud imika ninkan daahir baa sida yiri war ha ka dhigtay isaga sidaasana isagana ku dhaaf ugaaskan sheegaya
ugaaskani waa ugaaskii 19aad wey marka 19 ugaas la tiriyana hadii la isku soo celiyo mid 100 jiray iyo mid 80 jiray iyo mid 60 jiray iyo mid 70 jiray marka la isku soo daro hadii 80 laga soo qaado 19 ka ugaas waxay jireen 1520 sano jireen 1520 sano Soomaali cid sandalad lahayd ma bay jirinba ma garan kartaan kama hadli kartaan سمعت قرن يعني وحو دافع حلقي علين تو دافع حلقي اللي ودافعه بلدي علين الآن توهيس تاسو بلد الموبيل كم يدان مغل هذا بقول بلدي علين الآن توهيس عيد علين كرتو عالم كجوك ده ما بجرد ده أدبان وتاجر سنة إنه ظاهر رجال ثلاثة وسوج جدي مدحويني هوري إنه مدحوينها سومال لان حال بحيو أدبان وتاجر سنة إن سجال سجال لو درنا صاحبيتها إن يعني أضياش مصبحي أو ضدك أسبوعي أنا ثلاثة مدحوينه waan ku amaanana markii madaxweynaha daahir yaale oo isagu qaybta hayna talku ayuu qadiyo gobba sidaas yaani qofka gobtay loo soo hoydo waa inuu qadaa dadka kale laakiin gumba wax qaatay idinku inaad sidii gobonimada u talisaan oo idina dadka kale wax siisaan bay hayday inaad tiraadaan anaga wada cunana oo waliba yaana lagu arkin hadii taasi doqoniimay ku tahay sidaas baan ku soo goobaya u dhaaf maayo halka arrinkaasi beelaha kale ma gaaro ninkaas uu geebiyahay cidii soo dirtay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.